عليكم أصحاب قالك وحنا janaalkeena Amisha Kitchen kusoo dhawaada haddii aan ugu cusubtahay please janaalka subscribe noo dheh gambalelkana furasa ula socoto muuqaaladeen xiga insha Allah maasha Allah asxaabteyda maanta waxaan idinku talagalay shawarma aad u fudud inaan idinla wadaago oo insha Allah rajeynaa idinka dhanba inay idin wada cajabin doonto si oo qurux badan oo qarash yar ayaa usoo sameysaneynaa as I always ugu dadaalno wax yar oo qarash badan ka galeynin oo qurux badan inay idin soo gudbiyo idinkuna ku mahadsantihiin markasto sida ay dhiirigelisaan muuqaaladeedana u daawataan kusoo dhawaada shawarmadeeni hadda chickenkii waxa waaye qaybta jiirtu ahay waa soo jarjaray sida oo dhudhubka oo farfarta camal ah soo jarjaray marka wax yar saliida birta waa soo shubay aan ku soo shubay marka waxa rabaa inaan wax yar aan ku soo shiilo marka u horeyso dan ayaa isticmaal doonaa waxyaabaha aan ku darsanayno insha Allah si badan loo isticmaalaa yani dadka marka hore qaarkood hilibka chickenka waxa isticmaalaysa shawarma waxa ku cunayso oo rabtid inaad ka gashatid chicken ha ahaado ama waxaan leeyahay hilib ha ahaado ama malay ha ahaado marka hore ina ku soo darsatid waxyaabaha carcarfay dhadhanaanka ahay kadibna soo shiishid leebartaawa ama ina sidaan oo kale sameysid marka ku soo shiishid xooga kadib ku darsatid wixii cusbo dhadhanaan iyo macaan iyo wax walba ku kuleel ku darsan lahayd marka aniga hadda maanta sidaan u sameynaya marka u horeys wax yar saliid ku soo shubay waxaan ku kadkatinayaa chickenkeeni intuu xooga isku mid noqonayo waa kana maasha Allah sidii dhan isku kala soo noqday hadda wax yar u saacsaaday waxaan bilaaway inaan soo karo waxa ku soo darayaa jab yar oo maraq digaag marka qof walba dhadhanka wuxuu jecel yahay ku darsan karaa cusbo iyo maraq digaag wax yar marka ku soo shiilo kadib waxa ku darsanayaa bahaaraadkii maanta wax badan ma ku daraayay aniga bahaaraad badan ma ku daraayay hal mid bas waa inaan ku daro halkaas mid lee ku filan waa xooga basbaas iyo waxaas ma urabo aruura cunayso chicken masala waaye qofkii rabo hadhow gadaal oo wuxuu ka isticmaali karaa kajabka oo basbaaska leh ama basbaaska boodaba ku bidsan karaa maasha Allah waa kana hadartaan waxa ku soo shubay qaado yar oo chicken masala maasha Allah dhadhan fiican ku siinaya oo ku soo carfaya chickenka wax yar ku soo karna adii xooga soo huurina soo daboola marka wax yar kadib miisana soo dhahaasana ku soo sameysanaynaa wax fudud waaye oo waqti badan ka qaadanaynin marka adeeg ugu xiran tahay dhootina markii intii aad ku darsanaysid yani baradho ay badana waxa lagu darsadaa waxyaabo kale oo khudaar markii wixii jeceshahay qof walba soo jeceliya maaho ani markii kaliya baradho iyo waxaan soo isticmaalayaa ansalaato waaye marabo waxyaabo badan marka caruurta intaanay ay jecel yihiin marka marabo inaan qashin ka badiyo waxa tuftufaya maanta soo bixinayaan basal iyo waxaas marka adinkana saajicashihiin iyo wixii gurigiina ama reerkiina ay jecel yihiin ku soo sameeysta insha Allah xarijeynaya inaad ka wada heli doontaan waa ka saas qurux badan oo soo kartay oo soo dubanay chickenkeeni shawarmadana hore u sameystay aniga qobiska tortillaha janaalka uu ku jiraa qofka aan garaneyn sida loo sameeyo linkiga hoos soo dhigaa uu ku jiraa had ka horan sameeyay marka idin lama wadaagin qaybtan kala leeyahay inay idin tusiyo maadaama kan janaalka hore soo galiyay waa kana saan u soo saarnay aniga wax yar oo baradhana oo ku soo daraya iyo kisiro ansalaatada dan markaas adeeg ugu xiran tahay waxa ku darsanaysid ay geed ajashahay oo maxaan lahay soos isticmaalaysa kuba adiga soo sameysid ha ahaato ama ha ahaato kuba diyaarsan marka aniga waxa hadda isticmaalaya midka oo diyaarsan basbaas ma leh asoo basbaas lehna wuu jiraa saa idin sheegayba basbaas ma u rabo waa kana mayo kajab waayo waxa isticmaalaa aniga maasha Allah aad u macaan yahay waxaan rajeynayaa inuu muuqaalka idin cajabiyay haddii aad ka heshay fiidiyoga ha hilmaamin inaad like dhahdo hana isku reebin adiga la wadaag asxaabtaada si aad ugu wada faa'iideysataan insha Allah marka maanta muuqaalkan intaas ku ekaa asxaabteyda insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka wada bogoteen Soomaali ayaan tan si yaraanaya marka afwan inta ku kulmeyna marka muuqaalka xiga waxa idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Wassalaamu calaykum. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you.